السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان وسلامي يا أصحابتك وحرن كنالك علم سيدي حتى نحن قادم دونا برنامجو office programs oo aad dadku in badan ay ku yaqaaneen in lagu qaato hab computer ahaan loo qaato office programs ayaa la dhahaa. Waxaan ka qaadan doonaa computer ahaan iyo dadka in badan ku yaqaana waxaan ku qaadan doonaa iyadoo lagu adeegsanayo mobile kaaga gacanta ee aad inta aad ku qorato sidii caadiga ah computerada oo kale sidii loo isticmaalayo si lamid aad u adeegsan karayso. waxaan qaadan doonaa word halkan kugu qoran waxaa loola jeedaa Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint. sidaas mawduuc ayaan kala doonaa. waxaan marka rabaa intaanan guda gelin ka hor si gaar waxaan uga hadli doonaa ciwaankan ugu horeeya ku bilaabaynana intaan ka gaarno Microsoft Word. waxaan rabaa inaan sheego marka intaan hore u guda gelin ka hor qaabka loo soo degsado. waxaa laga yaabaa inuusan kugu shubnayn ama uusan kugu jirin mobilekaaga. Play Store ayaa farta dhag ku siinaysaan hadda muusan isticmaalaa la marayaan klik dhahayaa halka markuu kusoo baxana sida caadiga kor waxaad ku qoranaysaa Microsoft Word dad uu qorayaan shaashada uu koraysa uu saaran yahay hore aad ka siinaysaa halka waxaa kaga soo baxaya barnaamijkii dhag ayaad siinaysaa shaashada uu soo saarmaya xagga hadda meesha ay ka tahay uninstall haduusan ku shubnayn mobilekaaga install ayaa ku soo qormayso install ayaa dhahaysaa si direct asiga ku shubaa haduu khadka ku furan yahay laakiin hadda uu noo shuban yahay halkaan aan ka furan karnaa sida caadigan oo wuxuu nagu xirayaa in programkii aan guda galno. haddii kalena si taa ka duwan ayaan samayn karnaa oo waxaan dhihi karnaa dib u soo bilaabno oo ardaydu say u fahmaan sida caadiga meesha aan ka gelinaa ay ka geli kartaa marka hore ugu diyaarsan halkaan aan tagayaa meeshaan u yaala. okay waxaan ku marayaa marka waa kuwan document hore u qornaa waaye laakiin inta badan markii barnaamijkaas soo socdo sidaan uma soo baxaya hore u qornaa ku jira meel iska banaaneed laga yaabo inaad aragto halkaan aad tagaysaa calaamad balaaska aad dooranaysaa waxaa ku soo baxaya meelo badan ay ku qoran yihiin waxaad fiirinaysaa qaybta kaliya inay ku qoran tahay qaanadan meeshaan la yiraahdo blank in ayaad dooranaysaa. blank in waxaa loola jeedaa in waxaa la abuurid inaad warqad ama page cusub abuurato oo aad wax ku qorato iyo ku saabxina blank document waxaa la document maran ay ku diyaarinayo ku tutorial waxyaabo oo qoraal kale naqshada aad laga yaabo inaad ku qorartay ku jiro halkan kore meesha ay ku qoran tahay pgview waxaan ku siinaynaa ayaa ku qoran halkan pgview waxaan siiyo file-ka waxaan siinaynaa placeholder meel magaca lagu qoray ayaan ku siinaynaa placeholder name meel magaca lagu qoro taabiya marka magaca hadii aad qoraysid halkaas lagu qoro laakiin meel laga bedelo ka sahlan ayaa jirta ayaan aadi doonaa meel ayaad muusik dhagdhag ku siinaysaa haddii aad mobilekaaga caadi isticmaalaysana shaashada meel kamid ah meesha cad ayaad meel ka dooranaysaa waxaad qoranaysaa documentiga qoraalka caadiga intaad ka doonaysa ama sida u doonaysa tusaale oo kale hadda waxaan qorayaa kanaalkeena magaciisa oo kale ayaan iska qorayaa waxaan dhahayaa cilmi side channel ayaan iska qorayaa oo kale cilmi side channel markaad qorto waxaan ku sheegayaa marka inta badan marka aad darato inaad wax save garayso sida wordka iyo aad ku taqaani computerka ku soo qaadanaysa barnaamijyada kala office programska inta badan waa la save gareeyaa haddii aad save gareyn wayso documented dib u helaysid haddaba ku bishaarayso markaad adeegsanayso word oo ah barnaamijyada applicationada ku jira mobilada auto save waxa la ayuu leeyahay oo asaga ayaa waxaa qortaba hore ka save gareynaya marka haddii lacala aad baahato inaad save garaysan waad save gareyn kartaa laakiin waxaan rabaa inaan ku tuso inuu save garaysan waxaad tagaysaa calaamadaha saddexda dhibcood ayaad furaysaa oo markaad furto kadib halkan waxaa kugu qoran share waa ka hadli doonaa qaabka meelka loogu share waa arrinaa ka hadli doonaa hadda waxaad dhihi kartaa save ayaad dhihi kartaa markaad save tiraahdo waxaa hore kugu sheegay documentiga ku dhahayaa auto save ayaa ku qoran auto save waa maxaa on auto save ayaa daar haddii halkan jeeg laga qaado laga yaabaa inuu ku save gareysmo waa laga qaadi karaa haddii la doono laakiin inta basiis loo daayaa fiican waxaa marka all your change dhammaan isbedelkii arsafed waxaa lagu save garay automatically marka mar walba document aad qorto save gareysay ilaa qofka inuu halkan jeeg asi ka qaado moogi documentiga hadda documentiga noogu qoran marka noogu qoran halkaas oo ka muuqda magaca anaga inoo qaas inaan ku qoranaa fiican halkaan aad tagaysaa name ayaad dhagsiinaysaa markaad name dhagsiisana magacaad doonaysid ayaad u baxsanaysaa haddana waxaan u bixinayaa oo kale tusaale ahaan cilmi side ayaan u bixinayaa
ilmisida ayaad bixin magaca doonto u baxsan kartaa qasab maaha kaliya inaad ilmisida kaliya u bixiso ilmisida ayaan u bixiyay tan markaad ilmisida u bixiso safe hadda uma u baahnid oo hore mar walba u safe gareysay laakiin safe aska sii dhigi kartaa si magaca uu kugu qaato marka halka aan ka baxo aan uga tago wixii waan safe gareeyay waxaan rabaa marka inaan xoogaa yar ku sheego ama aan ku fahamsiiyo waxyaaba ayaa ku jira isla muuqaala ayaa jiro oo shaashada inoo wada saaran kan wuxuu kuu saamaxayaa markaas aan oo kale usoo gasho inaad qoraal bilowdo ayuu kuu saamaxayaa wuxuu kuu keenayaa calaamada cursor ee lahaa cursorkaas wuxuu kuu suurtagelinayaa qoraal bilaabid ayuu kuu suurtagelinayaa waxaa kaloo jira sidoo kale jira waxyaabo kale oo loo baahan yahay qofka inuu wax ka fahmo kuwan oo kale file kale ee hore kugu jira searcher ayaa loo adeegsadaa waa lagu raadiyaa kan waxaa lahaa markaad qoraalkaaga dhamaysay waxaad ku ogaanaysaa warqadaada naqshada ay noqon doonto ayaad ku ogaanaysaa ilmisida naqshada uu kusoo bixi doono iyo ku muujinaya waxaa lahaa viewer ama page viewer ayaa loo yaqaanaa print layout waa lahaa okay qaabka wax kugu daawacmaa ayuu sheegayaa waxaa kaloo jirta rabaa inaan kuu sheego ama ku xasuusiyo qayb kale oo iyana aad xasaasi u ah waan rabo in aad wax ka fahamto qaybtan kale tusaale kale waxaan qoray wixii aan qoray xarad aan sameynay si kama ayaan u daleeday ama waxbaan ka tiray wixii aan qoray waxbaan ka tiray aanan ku talagelin calaamad ayaa jirta oo la adeegsado ku suurtagelinaysa wixii aad tiratay ayaa la hawaa falaarta yar qaloocan oo meesha ku jirta falaarta waxay kuu suurtagelinaysaa wixii kaa khaldamay inaad soo ceshato wixii kaa khaldamay si kama aad u tirtay inaad soo ceshatay kuu suurtagelinaysaa waa undo calaamadda halkaa noogu taala undo ayaa la dhahaa undo waa kala halkaan way inoo soo marsanta hoosna waa laga helaa marka qaar dee waxyaabo qaar ay kaa khaldamaan undo calaamaddaas waxaa la undo marka qaarna sometimes waxay kasoo baxdaa xagga hoosena way ka timaadaa korna way ku timaadaa halkaan way ku taalaa undo wala hoos ka hel ama kor ka hel wax problem ama waxay ku kala geysantaa mal kana waa sax barnaamijka ku qanacsantahay sax ayaad haysaa documentigaaga saas ayuu kugu save gareysmay meel ayuu kugu yaalaa birita markaad u baahatana documentiga intuu ku save gareysay waa su'aal la isweydiin karo meesha uu ku save gareysay mar walba computerka barnaamijkan wuxuu ku save gareysla programka Office Word dhexdiisa meel kale ma geeyo haddii aad u baahato inaad isku hubeysan waxaad tagaysaa halkaas ayaad tagaysaa saddex dhibcood waxaad tagaysaa save as ayaad tagaysaa save as markaad tagtana meel kale waad sii geey kartaa haddii aad u baahato laakiin sida caadiyan ah wuxuu ku dhigayaa isla programka dhexdiisa ayuu ku dhigayaa dhammaan bahda waa salaamayaa tan iyo kulanta dambe cashirkeena kan ka xiga warsan iyo salaam